dhawaan ayay ahayd markii ay soo saareen go'aan maamulka magaalada Jigjiga kaasi oo ahaa inaysan mari karin gaadiidka yararka ee loo yaqaan bajaajta wadada weyn ee halbowlaha waa magaalada. go'aanka ay qaateen maamulka magaalada Jigjiga ayaa waxa loogu gol lahaa si loo yareyn lahaa saxmadda iyo ciriiriga ka jiro magaalada Jigjiga. balse dadka qaar ayaa ku tilmaamay go'aanka ay qaateen maamulku mid lagu degdegay aan laga fiirsanin ayagoo uu eegayo baahiyaha marka ay u leedahay gaadiidkan dadka ama ay dareemayaan xaaladda hadii wadada weyn laga mamnuuco gaadiidka yar ay la kulmayaan. si kasta ha ahaatee magaaladu intan iyo inta isbeddelka ka dhacay dalka iyo deegaankaba waxaa soo siyaaday dadka soo booqanayo ee kala ibaanay dunida dacaladeeda. Jigjiga hadda waxaa weeyaan magaalo ay ku soo hirtaan ama u soo shaqo tagaan dhammaan qoomiyadaha dalka iyo waliba Soomaalida deriskeena iyo dadka Soomaaliyeed. magaaladan oo ah magaalo muhiim u ah dhammaan haday noqoto qoomiyadaha dalka iyo ummadda Soomaaliyeed kaleentaba oo ah magaalo ganacsi ama ah magaalo waqti xaadirkan ka jirto nabadgelyo lagu naaloon karo kuna taalo meel cimiladeedii jooggeeda aad wanaagsan yahay ayaa waxaa sanad ka dambeeyay si siyaadahayo dadka soo booqanayo ama dalxiisayaal ha noqoto ama ha noqoto dadka shaqo u soo tagay ama ha noqdaan dad shaqo abuur ka sameeyo oo maal gashanayo. si kasta ha ahaatee Jigjiga ayaa tan iyo isbeddelka dhacay waxaa jiray wadooyin laga dhisay magaalada kuwaas oo loogu talagalay inay baahi tiraan bulshada ku nool magaalada. gaadiidka oo tan iyo isbeddelka dhacay soo badanayo ama dadka ganacsatada ay soo iibsadeen gawaarida maadaama culaysyadii badnaa ee ka jiray dalka iyo deegaankaba ay fududaadeen lana helay furfurnaan ganacsi ayaa waxa uu kor u sii qaaday ciriiriga iyo isku socod la'aanta ka jirta magaalada gudaheeda kaas oo sababay inay wadooyinkii dhammaan ama isku socodka magaalada uu ciriiri noqdo. si kastaba ha ahaatee tan iyo intuu go'aanka soo baxay maamulka magaalada Jigjiga taasi oo dhigayay inay mari karin gaadiidka yararka wadada weyn markaa beddelkeeda ay maraan jidadka kaleento ayaa waxa uu kor u sii qaaday ciriirigii iyo saxmadii ka jirtay gudaha magaalada. dadka qaar ayaa waxay leeyihiin go'aankan wuxuu sii siyaadiyay culayskii iyo isku socod la'aantii ama ciriiriga ka jiray magaalada. waxayna leeyihiin qorshahan wuxuu ahaa qorshe lagu degdegay maadaama dadka ugu badan magaalada Jigjiga adeegsadaan gaadiidkan uu yahay gaadiidka dadweynuhu boqolkiiba 80 la dhigi karo way adeegsadaan haday noqoto ardaydii aadsi iskoolada iyo jaamacadaha haday noqoto shaqaalihii tagay xafiisyada kala duwan ee ku yaal magaalada dacaladeeda.